tobankii sano ee u dambeeyey yaa ku guulaystay Nobel Prize-ka nabadda. Lambar 1 Midowga Yurub. Lambar 2 Ururka Mamnuucidda Hubka Kiimikada ah. Lambar 3 Kailash Satyarthi iyo Malala Yousafzai. Lambar 4 Afarta urur ee wadatashiga qaranka Tunisia. Lambar 5 Juan Manuel Santos, madaxweynihii 32aad ee Colombia. Lambar 6 Ololaha caalamiga ee lagu baabi'iyo hubka nukliyeerka ah, kaasoo ay 46 urur ay ku shiraakoobeen. Lambar 7 Denis Mukwege iyo Nadia Murad. Lambar 8 Abiy Ahmed, ra'iisul wasaarihii 12aad ee Itoobiya. Lambar 9 WFP. Lambar 10 Maria Ressa iyo Dmitry Muratov oo Ruush ah.